sida loo daweeyo rheumatism-ku waxay ku xidhan tahay hadba nooca adiga kugu dhacay. waxaynu hore uga soo sheekaynay inuu 5 qaybood oo waaweyn u kala baxo, 6 iyo 7na loo kala saari karo, laakiin 5taasi ayaynu awoodda saarnay. waxyaalaha ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ah wax loo yaqaano inflammatory rheumatism. Inflammatory rheumatism-ku waxaynu nidhi waa difaacaagii jidhka oo weeraraya jidhkaagii gaar ahaan jointiskii. marka tallaabada koowaad ee la qaadaya waxa weeyaan in difaaca jidhka ee khalkhalay la dejiyo, loo sheego inuu waxaan jidhkiisii yahay. waxaa la siinayaa dawooyinka markaa dejiya difaaca. 2 waxaa la siinayaa xanuunka yareeyayaal ayaa qofkan la siinaya, isagana xanuunkii waa laga yaraynayaa. haddii loo baahdana dawooyin biologic la yidhaahdo anti-TNF iyo IL-6 inhibitors loo yidhaahdo ayaa iyagana la siinayaa. waxaa kale oo loo qorayaa physiotherapy iyo exercise ku habboon marba xaalkaa u joogo. maaha qof walbaaba inuu gelaya, laakiin dhakhtarka iyo kolba ciddaa gacanta ku haysa ayaa arrinkaasi u qaabilsan oo u sheegaysa qofka xanuunsanaya. waxaa kaloo iyadna muhiim ah oo waddankeena runtii aada ugu yar in qofkan xanuunsanaya, maadaama xanuunkani laga yaabaa inuu yahay xanuun la noolaado inta noloshiisa ka hadhay, in loo sheego ama la baro qofkan oo si fiican loo baro xanuunkiisa si uu ula qabsado xaaladaha imanaya iyo haddii ay yimaadaan xaalado degdega sida uu la tacaalayo. qaybtaas waxa weeyaan qaybtii aynu nidhi inflammatory rheumatism. qaybta labaad ee ku xigtay waxay ahayd degenerative rheumatism. isaga sidee loo daweynaya? waxaynu nidhi osteoarthritis wax loo yaqaano, iyadu waxa weeyaan shayga koowaad ee ugu muhiimsani waa in la dejiyo xanuunka. shaqada ay jointigu lahayd ama laablaabatadu ay lahaydna dib loo soo celiyo. marka qofkaasi waxaa lagula talinayaa horta qofkaasi hadduu xoogan yahay ama uu buuran yahay inuu isdhuubo. 2 waxaa la siinayaa physiotherapy oo loo qorayaa inuu physiotherapy tago. muscle strengthening, muruqyadiisiyo in la awoodeeyo oo loo riixo oo physiotherapy-gaasi lagu awoodeeyo. waxaa kaloo la siinayaa paracetamolki iyo kuwii xanuun baabi'iyaasha qaar ka mid ah. haddii loo baahdo waxa la yidhaahdo NSAIDs oo topical ah, macnaha dusha laga marinayo ayaa loo qorayaa. haddii kale oo loo sii baahdo oo taasi ay wax u qaban weydana lafaha dhexdooda ayaa lagaga mudayaa dawooyin steroidska ka mid ah oo si advanced loo baahan yahay dhakhtar garanaya inuu ku mudo. dhakhtar kasta kuma mudi karo, dhibaato ayuu geysanaya ka badantii haysatay haddii uu iskaga mudo. joint replacement surgery waxa la yidhaahdaa jirta oo kama dambaysta ah haddii qofkaasi waxyaalahaas oo dhan uu ku dawoodi waayo in lagaba bedelo jilibkii dhibta kaabanayay. infectiouska qaybta infectionku wuxuu keeno sida bacteriyada iyo wixii lamid ah aynanu kusoo koobnay 2 nooc ee waaweyn ee ah septic arthritis iyo rheumatic fever. kuwaasi waxaa horta maadaama infection jiro, tallaabada koowaad aad qaadaysaa waxa weeyaan inaad horta infectionka ka takhalusto oo aad antibiotic fara badan siiso, iyo adigoo weliba u eegaya xanuunka wixii keenay bacteriyada keentay adoo eegaya. haddii ay dheecaan iyo ay samaysay bas iyo wixii lamidana inaad ka shubto, iyo wixii dhibtii ka dhacday muxuu ahaa laabatooyinka dhexdooda iyagana inaad ka shubto ood ka hagaajiso. haddii ay jirto inay laftii ay immobilization ku dhacay, yani inay dhaqdhaqaaqii yaraaday gacanta, iyadana in physiotherapy loo qoro oo dib loogu soo celiyo socodkeedii, iyo in laga dejiyo difaaca jirku hadduu weerar ku hayo meeshii ay dhibtu ka dhacday. penicillin prophylaxis waxa la yidhaha ama rheumatic fever oo kale si looga ilaaliyana long term penicillin prophylaxis ayaa la siiyaa qofkaasi inuu rheumatic fever ugu dhicin ama dhibtu ayna ilaa iyo u gaadhin wadnaha iyo meel lamid ah. waa in la xakameeyo hadday jirto dhiigga inuu raaco suntii infectionku ama infectionka laftiisa inuu dhiigga raaco. kaasina wuxuu ahaa maxay infectiouskii oo aynu kusoo koobnay dawooyinkiisii caynka. waxaa kaloo jira metabolic rheumatism oo kasoo sheegnay qaybta cuntada iyo waxyaalaha la cunaa dhibaatada ay geystaan.
qaybtani runtii waxay u baahan tahay in laga hadlo si gaar ah iyadna xanuunada cuntooyinka ugu fiican qofka uu cuni karo ee rheumatism-ka qaba. insha Allah fiidiyoyadan soo socda qaar kamid ah ayaan kaga hadli doonaa. waxyaalaha aynu haddaba saxayna iyada waxaa kamid ah qaybtan metaboliga aynu nidhi wax la yidhaha gout ama pseudo gout ayaa dhibaatada keena. wuxuu ku jiraa hilibka cas iyo inay kasoo sheekeynay. waxaa isaga muhiimadiisu ay tahay in la kontrolo difaacii jirka ee iska celinayay waxaan jirka uu isleeyahay waa ka celi waa wax dhibaato u geysanaya. marka dawooyinkaasaa lagu dejiyaa. dawooyinku ilaa dhowr nooc weeyaan oo acute attack hadduu jiro si degdega qofkan xanuunkan uu ugu soo booday waxaa iyada la sameeyaa dawooyinka NSAIDska iyo colchicine dawo la yidhaah iyo corticosteroids ayaa la siiyaa. haddii ay long termka markuu intaasi ka bogsadana dawooyin kale oo allopurinol iyo diet wax la yidhahdo modification qofkii cuntadii loo sheego loo sharxo oo kuwa aynu kaga hadli doono fiidiyada dambe ah. iyo in haddii dhibaatada jirta ee cuntada iyo wixii lamid ah in iyadana lifestyle changes loo sameeyo. allahumma salli ala maxamed. ta ugu dambeysa oo soft tissue rheumatism-ka see loo daweeyaa markay dhacdo. horta kow ujeedada ugu weyn waxa weeyaan xanuunkii hayay painka xanuunka waxaan malaynayaa de inagu waxayban malaynayaa xanuunka guud iyo dhibta keenaya iyo nabarka qofka ku taagan labadaba waxaynu u naqaanaa un xanuun baynu u naqaanaa. oo erey si fiican u kala saara oo Soomaaliyeed oo hagaagsan ma jiro. laakiin ama uu jiray ama anigaan xasuusnay ama garanayninba rest and activity modification ayaa loo sameynaya qofkaasi inuu la dejiyo oo nafis la yiraahdo oo halkii uu shaqada ka qabanayay hadduu ciyaarayay golf iyo hadduu ciyaarayay tennis ballba la jooji la yiraahdo yaadu shaqo badan qabanayay bal yarana sa la yiraahdo dawooyinkii loo qoro waxyaalaha u qabanayay physiotherapy iyo stretching loo sameeyo in injectionski aan kasoo sheekeynay lagu mudo iyo in kulayl iyo qabow lagu eego jirka keebaa isaga u roon. kalma xilliga kulaylaha ayay garbihiisu wanaagsanaanayaan mise xilliga qaboobaha la weydiiyo su'aalo badan la ogaado xilliga dhibtu ku timaado iyo stress management haddii qofkaasi stress haysta iyo dhibi in dhibtii management qaabka loo stresska loo manage karayo la baro. waxyaalaha markaa aynu ku baranay waxaa kamid ah in horta kow in difaacii jirka la habeeyo. laba in painka qofka laga qaadayo xanuunkii hayay. saddex in physiotherapy loo sameeyo iyo in lifestyle modification lagu sameeyo. waxyaalaha ayaa ugu muhiimsan baan filayaa waxyaalahan ka hadlayno. wixii su'aalaha qabtaana insha Allah xagga hoose ayaa noogu reebi doontaan. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina. waxaan rajaynayaa inaad nagu soo biirtaan haddii aydan hore noogu soo biirin. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.